Dabayaal dhammaantiinba maanta waxaan isla eegi doonaa nidaam ama habka lagu ogaado dadka Facebook profile-kaaga soo booqda. Sidaynu wada ogsoonnahay, shirkadda Facebook waxa wax iska caadiya inaanay lahayn nidaam ku tusaya dadka profile Facebook-kaaga soo booqda oo sida loo arko dadka history-gaaga ku arka ama bastiyada la garaya sida aad dadka u aragtid. Si la mid ah uma arki kartid dadka profile-kaaga soo booqda. Laakiin waxaa jira nidaam iyo farsamooyin haddaad raacdid aad ku ogaan kartid dadka Facebook profile-kaaga soo booqda. Bal haddaba farsamooyinkan iyo nidaamkan ayaynu isla eegi doonaa si ay idinkuna u aragtaan. Ugu horreyn Facebook ayaad tegaysaa, waxaad ku dhufanaysaa profile-kaaga ayaa imanaya. Markaan profile-kayga imaado kadib markaan profile-kayga imaado markaan profile-kayga imaado halkan ayaan imanaya. Halkan waxaa ku jira sawirradii aan history-ga soo dhigay aan highlight gareey. Dhammaan sawirrada halkan ku jira waxaan soo dhigay history-gayga dadka arkay deedna waxaan u soo qaaday waan highlight gareeyay oo kaasaa ka mid ah kan xigaa ka mid ah wuxuuba. Laakiin waxaa jira hal sawir oo aanan history-gayga soo dhigin laakiin aan halkan ku highlight gareeyay waana kaan ku ogaaday dadka profile-kayga soo booqda. Waana sida adiguna ku ogaan kartid dadka profile-kaaga soo booqday tiradooda. Ugu horreyn sawirkaan idiin sheegaya waa sawirka aad ku qoran tahay maan soo dhigin history-gayga Facebook-gayga ayaan caadi ugu highlight gareeyay intaan gallery-ga ka soo qaaday ayaan history highlight-kayga ku daray. Markaa sawirkaas ayaan ku ogaaday tirada dadka profile-kayga soo booqday bilihii u dambeeyay. Sawirka haddaan furo waxaan soo dhigay October ayaan filayaa inaan soo geliyay adigu dhowr bilood ka hor bay ahayd. Markaa sawirkan wax viewers muu haysan oo history ma soo marin laakiin imika waxaan arkay 73 qof. Dhammaan 73 qof waxay soo galeen profile-kayga waxayna arkeen sawirkayga. 73 qof laftigooda ayuu sii kala qaadaya. 26 dadka ka mid ah waa saaxiibadan Facebook saaxiibka ku nahay ila friends-ka oo marun profile-kayga soo booqday. Halka 46 kale qofna ay yihiin dad dibadda ka jooga Facebook-gayga oo aan friends ahayn laakiin si uu u soo booqday profile-kayga. Markaa dhammaantood 73 qof waxay soo booqdeen profile-kayga. Waa inay tirada waan fahmi karay waan dareemi karay xaddiga tirada dadka profile-kaaga soo booqda markaad tiradooda haysatid. Deedna waxaan kuu sheegi doonaa sidee haddaba lagu samayn karaa oo lagu ogaan karaa nidaamkan ama habkan yar easy-ga aad ku ogaan kartid dadka Facebook profile-kaaga soo booqda. Ugu horreyn wax iska fudud waxaad tegi doontaa halka plus-ka aad taaban doontaa history-ga lagaga daro. Halkaa waxaa ka muuqda deedna kuu soo baxaya camera roll oo wixii gallery-ga kuugu jiray iyo moolka gaarka ku ahaa. Halkan waa history-ga wixii aan soo dhigay oo iyagu views-kooda way wataan haddaan ku darayo. Halkan kale wixii kale aan Facebook-gayga sawirradan basti ahaan u soo dhigay waxay yihiinba. Markaa kuwana wixii lagu taageeray kuwana dhan ma soo waxaan tegi doonaa taa horeyso camera roll si sawir gallery-ga igu jira aan halkan ugu soo daro. Deedna markuu 0 views ka bilowdo wixii ku soo biiraan tiradooda oo haysto. Markaa waxaad tegi doontaa Zeal ama iwada tus dadka igu jira gallery-gayga sawirrada mid ka mid ah maska soo qaadan doona bal kan aan soo qaato. Markaan soo qaato waxaad wax ku qoraysid saas dooran kartaa waxaad ku qori kartaa deedna dhan baad oranaysaa ama save. Sawirkii wuxuu tegayaa history highlight-kayga isagoon wax viewers haysan cidina aanay hore igu arag. Markuu halkaa tago qof laale iyo kii profile-kayga yimaada wuxuu la kowsan doonaa waxaan tira ahaan ku heli doonaa halkan aan ka arki doonaa. Iminka haddaan furo ma haysto wax daawadayaal maadaama aan iminka geliyay laakiin qofkii ii yimaado profile-kayga halkaas tiradiisu ku biri doonta saad u furo. Markaa waxaan idin sheegay haddii la yiraahdo waa iska wax yar oo fudud wax weyn maaha. Waa dam yar aad ku ogaan karto cadadka tirada dadka profile-kaaga soo booqda. Waxaan idin rajeynayaa insha Allah inaad sidaas la eegaysan oo qiyaas yar bal ku samaysaan tira ahaan intee leeyihiin dadka bishii labadii bilood dhowrkii week profile-kaaga yimaada. Marka haddii la yiraahdo intaasay ahayd intaan idin sheegay aadna uma mahadsantiin. Waxaa kaloo jira isleeyahay haddii la yiraahdo halkan soo geli sida lagu ogaan karo sida loo bedeli karo post time date-ka oo tusaalaan post aan iminka soo qoray lagu jiro 2022 ayaa waxaan u bedeli karaa waxaan ka dhigi karaa post qadiima 2010 2009 iyo wixii ka horreeyay ama ka dambeeyay. Taas laftigeeda waxaan haddii la yiraahdo idiin soo gelin doonaa bartan aynu iminka iska maqlayno. Waxaa kaloo soo gelin doonaa sida Facebook journal time-ka loo bedelo xilligaad ku soo biirtay. Ciwaankaaga adigoo dhawaanaha samaystay ayaa waxaan ku tusi doonaa sida loo bedelo xilligaad ku soo biirto la isaga dhigi karo Legend 2010 5 11 meelaha malaha Facebook ma isticmaal jir sanadaha xilliga soo biirida Facebook aad bedeli karto. Sidoo kale waxaan rajeynayaa isagana inaan soo geliyo sida Facebook halka ay ad friend ku qoran tahay aad ugu bedeli kartid follow
imika halkaas waa adfarayn marka waa sida dadku i arkaan baan imika tegey marka halkaa adfarayn ee qofku taabanayo ayaan insha allah soo gelin doonaa nidaamka lagaga bedelo ee laga dhigo flow marka insha allah haddii la yidhaahdo wada socod wanaagsan aadna waan idiin salaamaya dhammaantiinba